waxaan rabaa inaan idin tuso waxaa laisoo weydiiyey Microsoft Excelka asoo free ah access muu yeelan karaa. waxaan rabaa inaan u sheego dadka inuu jira haddii aad leedahay Microsoft account haddii aad leedahay Hotmail iyo Outlook haddii aad leedahay already access full access waxaa u leedahay inaad heshid basic Microsoft iyo Word iyo PowerPoint haddii Gmail aad leedahay iyo ama Yahoo haddaad leedahay email kalena inaad maaragtay ku sign gareyn kartid. waa kana Microsoft accountiga hadda anig waxaan leeyahay Gmail-kan ku Excel baro Gmail-ka accountigooda aan ku sign gareynaya marka okay haddaan saxay marka passwordka okay marka waa kana hadda waa joogaa Microsoft account-kayga waa joogaa halkan app launcher-ka haddaad taabatid waa kuwana apps-ka marka Microsoft 365 apps waa kuwana marka kan waa email caadi ah waa Outlook waaye wuxuu replace garay Hotmail uu replace garay OneDrive kan waa on the cloud wax walba maaragtay save garaysanaysid access u leedahay meel kasta joogtid Word-ka waa leeyahay PowerPoint waa leeyahay OneNote-ka ujeedaa calendar-ki adiga to do Excel-ka like waa kana haddaan click garayno Excel-ku waa kana new workbook and template daarti inaad ka bilowdid new workbook aan leeyahay marka ma fahanteen marka waa kana marka waa joogtaa home tab-ki aad joogtaa Excel-ki dhex taagan tahay wax walba ku qoranaysaa xisaabaadka ku dejisanaysaa everything you want to do with it ku samaysaa waa basic waa free marka intaas waxaa idinku tusay Excel haddii aad rabtaan mararka qaarkood Excel-ka aan bixinayo haddii aad rabtaan inaad maaragtay step by step idinkana u practice garaysaan inuu jiro kan oo maaragtay ku practice garayn kartaan oo free ah waxaa inoo balana next clip